aba kama sheegi karo ninkan kullee hogaami kooxdu oo u eegyahay marba isagoo masar xidhan oo dhowr jeer YouTube-yada waa ku arkay marka ninkan waxa weeye waa saaxiibkan ogaadeen weeye oo ama hunguri hal la daayo aad ma santa ku soo dhawow barnaamijka xogta dadweynaha oo alaaba ka baxa warbaahinta Al-Jazeera Somali News magacay waafaqin Cabdi Cumar su'aal baan ku weydiinaya waxay oranaysaa see u aragtaa safarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaan Axmed Madoobe oo ku yimid Puntland بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u arkaa safarka Axmed Madoobe uu ku yimid Puntland ahayn wax macquul ah maadaama ay waxa weeye ay yihiin labadii meelood oo Soomaaliya ama golaha dhexe ka soo horjeeday waxa weeye qoladaynta koowaad waxay ka timid waa Jubbaland waxa weeye waxa la wadaa hawl waxa weeye fawda ah baa la wadaa marka waxaan leeyahay khalad buu ku yimid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh su'aal kale aan ku weydiinaya Puntland ma la oran karaa waxay caqabad ku tahay hanaanka geed socodka federaalka ee dalka wada qaatay ma sha Allah si weyn bay ugu tahay anigu ilaahay daacad soo hadlayna waxa weeye si weyn bay ugu tahay waayo waxa ka soo horjeedaa waxa weeye mid weyn bay ka soo horjeedaa waxa ka soo horjeedaa Soomaalinimadaba ka soo horjeedaa Mareykanba waxa la oran karaa anigu ilaahay ka baqayna bil aadan waxa weeye ka baqmayno waxa la oran karaa waxa ka soo horjeedaa Soomaalinimada ka soo horjeedaa waxa weeye shacabku waa okay laakiin maamulka ka soo horjeeda assalaamu calaykum waraxmatullaahi ku soo dhawow barnaamijka xogta dadweynaha oo alaabaan ku ururino ra'yiga dadweynaha su'aal ayaan ku weydiinayna waxay oranaysaa sidee u aragtaa safarka madaxweynaha Jubbaland oo ku jooga Puntland adoo ku bilaabaya magacaaga bismillaahir rahmaanir rahiim waan dhow ahay wax badan baan dhow ahay TV-ga Al-Jazeera News Somali anigoo magacaygu waa Maxamed Cabdi Maxamed baa la yiraahdaa dhalinyarada aqoon-yahanada ee reer Puntland baan ka mid ahay runtii fikirka aad weydiisay waa fikir aad iyo aad u muhiim ah runtii in la isweydiiyo runtii Axmed Madoobe safarka uu ku yimi Puntland shakhsi ahaantiisa dee waa imaan karaa oo waa nin Soomaaliyeed hase ahaatee siyaasaddiisa ama boolisigiisu ma aha waxa weeye mataqaana mid aan ku taageersanahay fikir ahaantayda iyo aragtidaydaba waayo runtii wax badan baynu ognahay Soomaaliyana aynu ka ognahay xaaladaha ay soo martay iyo hadda waxa weeyaan iftiinka yarka oo waxa weeyaan Soomaali maanta u iftiimay nimankan ka soo horjeeda oo Axmed Madoobe uu hormuudka u yahay isagu iyo groupkiisaba runtii siyaasad ahaan waa dhaliilsanahay maadaama aan ku hadlayo dhalinyarada aqoon-yahanada ee afkooda runtii aad iyo aad baan runtii aan uga xunahay iyo intii ka soo horjeeda qaranimada ummadda Soomaaliyeed waa in diidan nolosha ummadda Soomaaliyeed marka fikir ahaantaydu ama aragtidaydu saasay ku saabsan tahay Puntland waxa ay ku dhisan tahay waa dadkan eldariska oo dhaqameedyada waana marjicii dameeyay waxa weeyaan ay taladeeda iyo waxa weeye mataqaana mustaqbalkeeduba oo ku fadhiyo markii runtii laga hadlo Puntland waa meel aad iyo aad u nasiib badan haddana sida kale markii loo fiiriyo aad iyo aad u nasiib xun inta badan madaxda waxa weeyaan aan dooranno oo aan hoggaanka u dhiibanno waxa weeyaan naga ballan qaadaanin waxaan ahayn bay la yimaadaan waji cusub bay noola yimaadaanin runtii ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Puntland ee shacabka ummadda reer Puntland ee shacabka Soomaaliyeedba runtii 98% waxaan u taageersanahay dawladda federaalka Soomaaliya nabad iyo nolol baa la taageersan yahay hase ahaatee Puntland dadka jooga waa dad aad iyo aad nabadda u jecel iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed hase ahaatee waxay meesha wax ka khaldan yihiin waa dad shakhsiyaad ah oo waxa weeyaan interest basic political corruption uu yahay interestigood ama hadafkoodu yahay musuqmaasuq iyo waxa weeye mataqaana istoomariyeen marka meesha ay wax ka jiraaniin waxa weeyaan waa hoggaanka ma aha Puntland oo dhan lama oran karo Puntland oo dhan waxa weeyaan lama oran karo caqabad bay ku tahay dawladda federaalka Soomaaliya ama mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed lama oran karo laakiin waa dad group oo shakhsiyaad ah weeye runtiina waxa weeyaan dadkaasi baromeyska inoo sameeyaanin waxa weeyaan hadhow wax waji cusub bay noola yimaadaanin
hase ahaatee insha allah wax wali waqti bay leeyihiin waqtigeedaan siinaynaa biidnillaahi kariim adduunka challenge badan baa insha allah jira challenge badanna waa imaanaya isbeddelku waa socdaa waxa weeyaan insha allah biidnillaahi kariim insha allah waa ka fiirsan doonaa adduunku taariikhdu iyadaa wax qorta taariikhdu iyadaa wax qorta insha allah marka madaxweynaha hadda jooga deni runtii waxa weeyaan weli waqti fiican buu haystaa waxaanu leenahay mudane madaxweyne runtii annagoo ku hadlayna dhallinyarada afka aqoonyahanada ah ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland waxaan leenahay runtii boqolkiiba 98 mudane madaxweyne dhinaca positifeka ah wax ka qiimay dhinaca negatifeka ah boqolkiiba 98 waxa ka qiimayn intaasaan ku soo koobaya hadalkayga ku soo dhawow barnaamijka xogta dadweynaha oo ka baxa warbaahinta Al-Jazeera Somali News barnaamijka waxaan su'aal baan ku weydiinaa ra'yiga ay ogaanayna waxay tahay sida u aragtaa safarka madaxweynaha Jubbaland uu ku jooga Puntland adoo ku bilaabay magacaaga magacaygu waa Cabdi Axmed Maxamed waxaan u arkaa inay tahay safarkaasi barkumataal midada kale waxa la oran karaa waxay u yimaadeen shirkadana dawladda federaalka Puntland ma la oran karaa waxay caqabad ku tahay hanaanka geed socodka federaalka marka la fiiriyo soo dhaweynta Axmed Madoobe dadka siyaasadda ka faalooda waxa runtan u sababeynaya inay tahay inay sameeyaan isbahaysi cusub oo dawladda federaalka soo jeeda taasi see kula muuqataa waa la oran karaa waa ka dhan Jubbaland iyo Puntland hadeerna waxa wiiqaya maamulka koonfur galbeed oo hanaankiisu saxan yahay lafta gareen oo aad loo shaqeeyo dawladda federaalka iyo galmudug oo doorashooyin iyo dib u dhac ay ku sameeyeen sida daraaddeed hadda waxa imaan laha xulufaysi ay u sameystaan dawladda federaalka si ay ku wiiqaaneen bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacaygu waa Abdixriin Maxamed Daahir waxa kamid ah dhalinyarada magaalada Garowe anigu fikirkayga hadaan ka dhiibto imaashaha Axmed Madoobe oo Garowe imaanayo waxaan u arkaa caqabad weyn inay ku tahay dawladda federaalka nabadii nolol ee hogaamiyaan madaxweyne Farmaajo oo Ra'iisul Wasaare Khayre sababtoo ah ninka la yiraahdo Axmed Madoobe waa ninka hore u carqaladeeyay dawladda meel badan ka soo xirxiray haddana wuxuu doonayaa maadaama madaxweynuhu hore arrinta kala shaqeeyay madaxweynahan cusub Deni inuu isla arrinta kala shaqeeyo hadii la yiraahdo markaan caqabad weyn baa u arkaa fikirkii oo ku dawladda Soomaaliya waan maasintiin ku soo dhawow barnaamijka xogta dadweynaha walaaba ra'yiga bulshada ku warino kana baxa warbaahinta Al-Jazeera Somali News su'aal ayaan ku weydiinaya waxay oranaysaa sidee u aragtaa in safarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu ku jooga Puntland Axmed Madoobe safarku ku jooga Puntland waa mid sharci darro weey sababtoo tahay xilka waayo xil micnaha loo igmaday oo si cadaalad ah u dhacay ma ahanba marka waa su'aalkan ku weydiinaya waxa leedahay la soo karaa Puntland waxay caqabad ku tahay hanaanka geed socodka federaalka oo ah nidaamka dalka wada qaatay niyo taas wax suurtagal ah waa meesha hadda dadku dadweynuhu hadda ay wacbirayaan badankood markaa wax ka weydiisida awlaha si u socdaan hadda Axmed Madoobe oo yimid boosaas ka digay oo kale sida hadda dawladda Puntland ka shaqeynayso oo kale waxaad moodaa hawlaha dadku dareenkooda meesha u badan yahay buu weeyay inay caqabad ku tahay dawladda Soomaaliya geed socodka ku soo dhawow barnaamijka xogta dadweynaha ee aan araba ku fiirno aragtida bulshada kana baxa warbaahinta Al-Jazeera Somali News barnaamijka su'aal baan ku weydiinaynaa waxay oranaysaa sida u aragtaa safarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu ku jooga Puntland bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdirasaaq Abshir Axmed iyo madaxweyne Axmed Madoobe horta waa soo dhaweynaynaa Puntland waa ku soo dhaweynaynaa laakiin sidoo maxaan ku dhahay madaxweynaha kale uu shakhsi ahaanteeda hadii la iga weydiinayo kale madaxweyne aan taageersanahay ma ahan sababtoo ah waxa weeyaan uu madaxweynayaasha ku hadda Soomaaliya kale markuu yahay qofku tii Soomaaliya uu taageer karaa laakiin sida aan u arkay Axmed Madoobe waa madaxweyne ka soo horjeeda xagga Soomaaliya oo si calaqad ku ah ku soo dhawow barnaamijka xogta dadweynaha oo alaba dadka su'aalo ku weydiino kana baxa warbaahinta Al-Jazeera Somali News su'aal ayaan ku weydiinaynaa waxay oranaysaa sida u aragtaa safarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu ku joogo Puntland السلام عليكم ورحمة الله مدحوينها جبلان waxaan u arkaa madaxweynaha soo booqday oo dariska iyaga aawiyay
xogaa waxa jira caqabado siyaasadda iskaga hayaan maamuladu farmaajo warkiisa maqal waa madaxweynahayagii waa madaxweynaha calanka Soomaaliya hayay waqtigiisa dhamaysto adiga waqti hal igu daro hadaa leedahay waa macne laakiin xoog baan ku soconayaa bawlgeelada inta khilaafsan farmaajona waxa leeyahay anoo ka dhalinyar ahaan oo Soomaali ahaan farmaajo ma khilaafsanin waa taageersanahay inta ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena xogta dadweynaha oo aad kala socoteen warbaahinta Al-Jazeera Somali News barnaamijku maanta waxa idin ka imanaya caasimadda Puntland ee Garowe waxa idin daadihinayay anigoo Faginda Cabdi Cumar barnaamijkan mid lamada intaan ku kulmi doono waa aniga iyo bahda Al-Jazeera Somali News oo idin leh ismaqal dambe